وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودا وهذا دمانتين ولا ليال دad كان نو صوبته إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سي شرقرية إن شاء الله بالملة الكريم إسقارسي هدي إلهي راهو سيدا نقول تقانا بمن مقرن وحويان أنو تا أيان كهذلنا برناك أيان صودقنا وحكستو أن سلين هاي community كينا أما nation كينا أيي وحكا بدليسا إن شاء الله بالملة الكريم وعلى مكلا حناقان هونتا هلا قاطو وحي اللي بدلي كرنا إن شاء الله بالملة الكريم هلا بدلو maanta meesheedu waa roobabo barnaamij baan soo fadhiistay roob baa ka da'ayo xoogaa waa roob aan noo soo socda oo maleynaya ma sha Allah hawadii dhanaa xiran وعليكم السلام ورحمة الله جماد aad baan ku salaamayaa dhamaantiin assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته waxaan ku bilaabaynaa a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam صوبة وحير ولا لا إن شاء الله حوغا روبا سو سocda gaarigan gali doona إن شاء الله hadii la yiraahdo حوغا mugdi baad moodaa laakiin sookay maanta waa u jeedaan barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay walaalaha yar ragga Soomaaliyeed marna aan dhalnay marna aan maxaytay dhaqnay marna aan ma sha Allah ragga Soomaaliyeed maanta to banaanka ayaa la soo dhigayaa gabdhaha laftirkoodu waa u soo soconaa gaarigan galaya aaday meeshan gawaariya aad u qaynaysa raali noqdo walaalayaal insha Allah gaarigan kala dhaxal doona hadii Ilaahay raaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مقرن ماشان نقلا سعوتان ولا ليال وولياليا صوماليات مروا البابا وتاجنا من نوين تأمد صوماليات لدقال لنك قبيالده إيو إن شاء الله بالملة الكريم قرنك إن آن نحوق صارنا هدي إلهي راهو وحيد اسمه ولا ليال غدا نحكي قارقا طب كواردنا واطب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وان سلام يا هل كان نقلا سعوتان ومن مقرن ما أنت برنامج كنوح وكسر سنة هاي هدي الله سبحانه وتعالى نوع قلاده رجع الصوماليات وحن كهاللينا هدي إلهي راهو وحن قصو قريكور ragga Soomaaliyeed intii badnayd waxay dhumiyeen mas'uuliyadii Ilaahay faray ayay dhumiyeen waxaan u maleynayaa 10% inta aan ahayn ragga Soomaaliyeed mas'uuliyadda way ku yaraatay waxaadna ka garanaysaa baaba wadankeeni 27 years gaaray waxa ka dambeeyay waa rag waxa dumarkii dayacay waa rag waxa caruurtii dayacay waa rag waxa maxay tahay wadankii gatay waa rag waxa siyaasad xumaha wata waa rag waxa annaga dhan nabaabiyay oo nation dhulka u foorsaday naga dhigay waa ragga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan xumaanta ay leeyihiin waa inay qaataan waana inay ka toobad keenaan waana inay u istaagaan sidii ay xaqa Allah subhanahu wa ta'ala uu faray ay ugu maxayta uga soo bixi lahaayeen siday awlaadooda u dhaqan lahaayeen siday maxayta xaasaskooda Ilaahay faray inay sida wanaagsan u dhaqdaan ay u dhaqan lahaayeen حقي إلهي فري إني كسو بحان إيه أيجا مسؤولية الله صاري وإني يستاجان نيكي رير كي صدق أو علمي صدق أيا وطن كوحون نقون كرا كاس أيا وطن كمدحوينة كن نقون كرا كويل كيس أيا وطن كوحكن نقون كرا ولا ليال حتى كمان نقون كرا ويل سلعي سحرير أبيه صوت ضيعي وأصلا الربا قبل كلا إنه ضيعه أما المكلا ضيعه كاسي كمان نقون كرا waxaan leenahay ragga Soomaaliyeed
waxyaabaha aad ku qaldan tihiin adduunkii dhan baan darsay meel kastaan fiirshay afrika iyo waddankeeni meelaha Soomaali ku nooshahay baan xabad u soo dhageystay u soo akhristay meel kasta oo Yurub kamid ah ama America kamid ah ama Aasiya kamid ah meel kasta oo Soomaali ku nooshahay waxa ka dhacay waxa la yiraahdo marriage disaster baan ugu dhacay oo markay noqoto Soomaali waxay noqotay meel kasta ubadkii Soomaaliyeed inay kaligood yihiin oo aabal aan yihiin wiilashii Soomaaliyeed inay ku koraan without role model ama aabal aan oo aysan haysan qof ay fiiriyaan qofku waa inuu haystaa qof ku daydo waliba wiilku waa inuu haystaa qof ku daydo hooyo laakiin waxa ku dayan kara gabadheeda laakiin wiilku inta badan kuma dayan karo marka walaalayaal waxaan oran lahaa ragga Soomaaliyeed horta number 1 mistake wadankeena dhibaatada ku dhacday idinka waaye wadankeena waa burburiseen dumarkii waa baabi'iseen oo shan qabashan siidaba ka dhigteen maxay heeto ciyaalkii waa baabi'iseen ilmihii waa ka dhigteen ilma aabba la'aana waxaan nahay nation dhan oo garacyo u badan because meel kasto aad tagtid Soomaaliya adduunka inta Soomaaliya joogtin maaha inta kale inta Soomaaliya joogtana hooya kaliya ugu qarxiya oo la dhacdhacda waxa qarxinayna waa nin Soomaaliyeed ama waa wiil Soomaaliyeed ama waa kuwi aabal aanta iyo agoonta ku korisay inta adduunyada joogtana hooyo kasta kaliya ilmaha la dhacaysa hooyo kasta kaliya ba ilma korinaysa waxaad arkaysaa 8 ciyaal oo isku laasineema oo isku hal aaba ah oo haddana maxay haytay aaba aan haysanin aabahoodna 20 jir iyo wadanka ka shaqaysanaya ama joogo ama meel iska taagan yahay adduunyadii ayaa nala yaabtay oo fawaaxisho not only in ascunay oo ariyullahi baraar oo isqalqashay aan nahay adduunyadii ayaa waxay la yaabtay sida aan u nahay haddana unresponsible waxaan unresponsible u nahay ninka islaamka diinta islaamka kitaabka islaamka sidii Allah subhanahu wa ta'ala u soo dajiyay atin si aan ahayn in loo isticmaalayo because diinta islaamka ayaa qabta ninka rag ah inuu yahay masuul caruurtiisa inuu masuul ka dhigo wiilashiisa inuu masuul ka dhigo at the same time maxay tahay masuuliyad ayaa ilaahay reerkiisa iyo xaaskiisaba ka faray xaasku ma ahan xoolo aad meesha dhigatay oo aad ku xiratay xaasku waa ilaahay subhanahu wa ta'ala qof uu abuurtay ilaahayna kuugu keenay inaad noloshaada maxay tahay la qaadatid oo noloshii kuugu qurux badnaato oo baahida aad u qabtay aad ka hesho oo aad ku noqoto family adduunku familyga easy ma aha familka runta familku waxa weeyaan waa nolosha adduunka waa nolosha ilaahay subhanahu wa ta'ala oo qofku uu jecel yahay uu siiyo family xaas wanaagsan ilmo wanaagsan waa waxyaabaha ilaahay subhanahu wa ta'ala qofku uu jecel yahay kaliya uu siiyo marka ragii Soomaaliyeed aniga hadda meesha aan joogo anoo meel walba soo wareystay meesha aan jooga aan kaga sheekeynaya anigoo waliba kamid ah shaqaalayaasha u shaqeeya meelaha dadkeena Soomaalida u badan yihiin waxaan aragnay habeen iskuulada kamid ah meesha aan joogo inay iskuulkii intay yaabeen ay dhaheen ilmayaashan oo dhan oo aan hayno iskuulka waxa u badan ilmaha Soomaalida ayaa 7% ah ilmaha kaleeto waa 30% oo wadamada kale oo dadka kaleeta ah 7% oo ilmihii Soomaalida ahaa bayse u joogeen gaalada intay yaabeen waxay dhaheen caawa waxaan sameeynaynaa wax la yiraahdo Father's Day ma rabna hal hooyo inaan aragno waxaan rabnaa only 7% of these kids inaan aragno maxay tahay aabayaashood marka caawa hooyooyinka dhan waxaan ka codsanaynaa aabaya ilmahan inay maxay tahay idinkana guriga inaad joogtaan waxaan rabnaa ciyaalkiina aabayaashood inaan la kulanno oo aan u sheegno quruxda ilmahoodu leeyihiin iyo qiimaha ilmahoodu leeyihiin si aan u ogaano ilmahan inay aaba leeyihiin iskuulkaas waxa la ii sheegay hooyooyinka dhan ilmahooda inay aabayaashu wiceen ay dhaheen war haddaan xataa aan wada noolayn iskuulkii ayaa ku rabay kaalay imo caawa waxay dhaheen iskuulkii waxaan rabnaa inaan sameeyno wax la dhaho Father's Day si aan u ogaano ilmayaasha Soomaaliyeed aabayaashood meeshay ku maqan yihiin markaan noo yimaadaan anaguna quruxda ilmahooda kaliya ayaan uga sheekaynaynaa walaalayaal sheer gareeya waa wax important ah please ha u qaadanina wax aniga aan dadkeena ama aan ku liidayo ama aan ku waxaynayo laakiin waa wax runtu ay tahay inaan ka hadalno oo aan isku toosino runta waxa weeyaan inaan runta intaan sheegno aan qaladkeena saxno because impossible weeyaan adduunyadan Afrikaanka kale xataa lama midnihin dadkii islaamka ah oo diinta islaamka ku dhaqmaya lama midnihin wixii dadkii gaalada ah oo gaalnimada ku dhaqmaya lama midnihin waxaan ka nahay different waxaan nahay dad responsibility ku yaraaday waxaan nahay dad aan fahansanayn macnaha marriage-ka ama ilmaha ama hooyooyinka aan fahansanayn baan nahay wax alla qarinaya mal anaga midnimo qaran waxba ma qarino horta nabarta midnimo qaran anagu siyaasiga qaldanna banaankan soo dhignaa
waxa wixii aan ognahay community-geena ama nation-keena inay qalad ku tahayna banaankan soo dhigeena ma aha wax la qarinayo gabdhaha laftirkooda waxa u soo socda karbaash weyn ha u maleynina gabdhaha in la dhaafayo gabdhaha barnaamij aad u weyn baan kaga hadlayaa qaladaadka ay raggu dhibaatada ay geysteenna in badan ayay ku leeyihiin anaana og inay in badan ku leeyihiin inta ay ku leeyihiin ana banaanka idin soo dhigaya marka ragow taa ogaada meeshii marka isugu yimaadeen la rabay inay isugu imaadaan nimanka Soomaaliyeed oo la rabay inay imaadaan aabayaashii Soomaaliyeed waxa la ii sheegay inay tageen 70% iskuulkaas balogooya 70% iskuulkaasi waa only waa Soomaali inta kale 30% ayaa waxay yihiin dadka kale oo dhan oo isu tagay cadaan madow dadka kale oo isu tagay Afrikaanka kale dadka kale isku tagay iyo Asiaanka ba 70% waxa dhacday waxa yimid saddex faadar هذا والله إلهي مقعسان كل أرتين أنا بيرد نشجع واسطة لا يقول أرتين صدق فاضر كليه يمد سكول دن أو 70% صومالية أو لواي صدق فاضر كليه لقيه لي أو إن الله أنتي كل لواي أبياش لي بل إنك يا لي معك كصادعتين مروك كصابحين إن ما محيت حاجة كيمادين ما بالضبط كاسماشي كيمادين نشجع ويلا شاير ركاية قبلها ير ركامي دول بمك كلا وكقرح بني وكبيه ذهب سنة هاي متكستهوي بعد ضبع الرئيسة وقصة أنا هذا area عند جنه سكول كان عادي تاسي وحى إنه كوجو حجون ربعين عادي نيجوا قصة كلا أو كان عادي مينيسوتا ما يرضى أنتو استاجي إنه يري where is Somali fathers where is Somali fathers ما حكون على Somali fathers كي قوي دوكسي وحى تاجن هويو جيم كي وحى تاجن هويو سبورتس كي وحى تاجن هويو محيتي أن معلم كمركي لده إن وحويان عاو هبين كي معلمين تو أي وارد كله كل مين وحى تاجن هويو waxaan ku iri meel kasta shoppingki waxa taagan hooyo wax kasta ilmihii Soomaaliyeed ayagoo aabayaashood nool yihiin ayay yihiin agoon ay yihiin maxaa u keenaya agoon ka dhigay ilmihii Soomaaliyeed waxa agoon ka dhigay aabayaal nool aan nooleyn waana nool yihiin mana noola ilmihii Soomaaliyeed waxa agoon ka dhigay aabayaal life ah hadana dead ah runta idin sheegaya they are dead and they are life aabayaal aan responsibility lahayn ورابها سو إن كان كوجود عضيه سو موجود إلا استعمال بيوت كنترول رجع أو هداد الربين إنها بشرو سو موجود there is something to use for a man use that ever المها يسكون دالين واحد سمايك كا المها يسكحر واحد لهذا جراسة دمر كوي استعمالان واحد جرا رجع إلى إسحران رجع صوماليات إنتي نبضان إسحرا دلوق إسكحرا because خير مزولة نقطين because unresponsibility because ilmaha sirka masaakiinta ubaxa ee adduunka ilaahay qofku jecel yahay kaliya uu siiyo ayaad responsibility-goodi qaadi weydeen waxaad ka dhigteen ilmihii inay yihiin la iska dhalo laga dhaqaaq war ilmaha soo moogid ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofku jecel yahay kaliya inuu siiyo soo moogid ilmaha in ilaahay kuu naxariistay markuu ubad saalixa ku siiyay حق المها سو موجود أديك مسؤولية دوغو سرّيسة إنك كسارن تو أنيك إسارنين وردو مركا إننا سارنين ومسؤولية دوغو سرّيسة أديك كسارن تاي سو موجود ما يردن أو مريكنا إنتو إستاغو إنو دوه داس شنفل داس عيب داس دينة إسلام كو كفول حنطاي أب وكفول حنطاي دينة إننا ميلبان قدعنا ريالتي سومالية دينة إسلام كميلبان قدعنا because دينة إسلام كا هذا وحنا لدقن أنيك حافظنا خاصة دقن هاي واحد دقن هندي إسلام واحد دقن عرب إسلام والله أو بالله أو تالله إن هذا والفير نكو أركينين والله إلهي مقعيسان كل حتى أورمضة إن هذا والفير كو أركينين waxa welfare please hay soo wicinina please intaan ku jiro barnaamijka hay soo wicinina dad baa soo wacaya please hay soo wicinina